bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo National TV idin hayo qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada Ruushka oo ku sii dhawaanaya magaalada Kiev iyo duqeymo maanta lagu garaacay magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv qasaaraha ka dhashay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo shaaciyay in laga hortagay weeraro ay al-shabaab damacsanaayeen inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho doorashada kursiga Fahad Yaasiin oo la dalbaday in lagu qabto magaalada Muqdisho General Inna Qarshe oo shaaciyay in galmudug uusan waxba ka helaynin qof wadani ah kadib markii loo diiday mid kamid ah kuraasta taalla magaalada Gaalkacyo Amisomna waxay shaaca ka qaaday sababta ay qad cagaaran uga samaysatay magaalada Muqdisho wararkaasi kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa maalin Talaado ah 1 Maarso sanadka 2022 u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi وهجاج مركل كلنتي وناكسن إنتان فافاينتا وركنا جودا جلين فضلاً سبسكرايب صار قناة كنا كدبنا فرق جنبالك سو ورك عن هالكن صور دقنا أدوشة هذا دركت هذا نور بتوان كاجم هاد علينا يا عن كوبلابو وركنا وأقار كم إذا صورة بربركي كدعاي فجارة حرية مجال قركيف كدب وركي بلارنا الجو قاعد اسمها حرونت الدولة تاريخي جاء ciidamada Ruushka ayaa magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv ku garaacay maanta duqeymo xoogan weeraradan ayaa waxay u muuqdeen kuwa lagu bartilmaameedsaday xafiisyada dawladda ee ku yaala fagaaraha xorriyadda ee bartamaha magaalada dagaalka Ruushka iyo Ukraine maalintii lixaad ayuu galay waxaana jira qasaaro xoog leh oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoo weli uu dagaalku socdo ciidamada Ruushka waxay ku sii dhawaanayaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaana weli ciidamada Ukraine ay wadaan iska caabin xoog leh oo ay markaasi kaga hortagayaan ciidamada Ruushka ujeedkoodu yahay inay qabsadaan caasimadda Ukraine ee Kiev sidoo kale waxa ka go'an ciidamada Ruushka inay gacanta ku dhigaan ama ay markaasi la wareegaan xarunta madaxtooyada ee dalkaasi haddaba aan eegno qasaaraha Ukraine ka soo gaaray dagaalkaasi ugu yaraan 70 askari ayaa lagu dilay duqeynta Ruushka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Ukraine wararka ayaa sheegaya in xarunta gobolka Kherson ay hadda ku hareereysan yihiin ciidamo Ruush ah iyadoo la sheegayo in askar iyo qalab military ay ka jiraan dhinac walba ciidamada Ruushka si tartiib ah ayay ugu sii dhawaanayaan Kiev iyadoo sawirada dayax gacmeedka ay muujinayaan kolonyo gaashaaman oo dhererkeedu dhan yahay ilaa 40 mayl ama 65 kilomitir tobaneeyo qof oo rayida ayaa la sheegayaa in lagu dilay gantaalada Ruushka uu ku garaacay magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah ciidamada Ruushka ayaa weerar dhulka ah ku qaaday aroornimadii saakay magaalo ku taala meel u dhow Crimea oo ay Moscow maamusho ciidanka Ruushku waxay jidgooyo dhiganayaan meelaha laga soo galo Kherson duqa magaalada ayaa Facebook ku soo qoray Kherson waxay ka mid tahay Ukraine wayna ka sii mid ahaan doontaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay wixii ku soo kordha dagaalka Ruushka iyo Ukraine wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan markana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo khudbad ka jeediyay munaasabad loo qabtay ciidamada booliska ayaa ka hadlay amniga caasimadda oo muddooyinkii la soo dhaafay si xumaanayay Filish ayaa shaaciyay inay si wanaagsan ku soo dhamaadeen doorashooyinkii golaha shacabka ee dhawaan lagu qabtay Muqdisho wuxuuna tilmaamay in ciidamada booliska iyo saraakiishooda ay fuliyeen qorshihii loo dejiyay amniga doorashada duqa Muqdisho hadalkiisa sii wata ayaa xusay in markasta kooxda shabaab ay qorsheenaysay weeraro ka dhaca caasimadda balse laga hortaagay sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale wuxuu bogaadiyay ciidamada ammaanka ee loo xilsaaray amniga doorashooyinka isaga oo tilmaamay inay ka soo baxeen waajibaadkii ka saarnaa qaranka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale u mahadceliyay shacabka magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay dulqaad muujiyeen inta ay socdeen doorashooyinka golaha shacabka maadaama maalmaha qaar la xirayay wadooyinka caasimadda Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi Somaliland iyo kuwa Banaadiriga kuwaas oo maalmo ka hor la soo gabagabeeyay si kastaba hadalka Cumar Filish wuxuu imaanayaa xilli caasimadda ay ka dhacayeen maalmihii la soo dhaafay dilal qorsheysan iyo weerar qaraxyo ah oo dhaliyay qasaaro xoogan oo al-shabaab ay geysanayeen
dadka ka faalooda arrimaha amniga ayaa aaminsan in hay-adaha ammaanka dowladda iyo saraakiisha ciidamada qaarkood ay ku milmeen siyaasadda iyo doorashooyinka, taasina ay sabab u tahay ama ay ka dambayso inay al-shabaab kordhiyaan weerarada ay ka geystaan magaalada muqdisho. wararka National TV ayaa daawanaysaan, fadlan daawada subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno aad u hesho. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ballanqaad culus u sameeyay ciidanka booliiska kadib markii uu ka qayb galay munaasabad loogu mahadcelinayay ciidamada ammaanka. Beyle ayaa sheegay in dhammaan askarta booliiska Soomaaliya loo sameyn doono mushaar kordhin galayso mushaarka ciidamada, raashinka iyo gunada ay qaataan si loogu abaalgudo waxqabadka ay la yimaadeen. wasiirka maaliyadda ayaa xusay in booliiska Soomaaliya uu si weyn uga shaqeeyay amniga doorashooyinkii lagu soo gabagabeeyay caasimadda, loona baahan yahay in la dhiirageliyo. waxaa balan ah ilaah baa wax waliba og in aad markaasi qaadanaysaan wax lagu daro ayaa talada ku jirta. raashinka in la kordhiyo, gunooyinka oo la kala bedelo lana kordhiyo, iyo mushaarka in wax markaasi lagu daro haddii alle waxna siiyo, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Beyle. ma shaacin wasiirka xilliga rasmiga ah ee uu dhaqan galayo qorshahan mushaar kordhinta ah iyo xaddiga la gaarsiin doono intaba. sidoo kale wuxuu ugu baaqay ciidanka booliiska iyo saraakiishooda inay sii kordhiyaan dadaalkooda, ayna xoojiyaan mas'uuliyadda ka saaran amniga guud ee dalka. haddii uu qorshahan hirgalo ayaa waxa ay dhiirigelin xoogan u noqon doontaa dhammaan ciidamada booliiska ee ka shaqeynaya ammaanka dalka, gaar ahaan magaalada muqdisho. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxay ciidamada booliiska kordhiyeen howlgalkooda ka socda muqdisho si looga hortago falalka lidiga ku ah amniga inta lagu jiro doorashada. Khalid Maxamed Gaabane oo ka mid ahaa murashaxiintii laga hor istaagay tartanka kursiga beeshooda ee Hope Ever 86 oo taliyii hore ee hay-adda Nisa Fahad Yaasiin uu ka soo qaatay magaalada Beledweyne ayaa soo jeediyay in doorashada kursigaasi lagu qabto Muqdisho, gaar ahaan Afisiyoni. ninkan ayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay ku taageerto raadinta xaqa, maadaama sida uu sheegay kursiga uu raadinayo uu yahay albaabka ay ka bilaabato cadaalad darrada doorashada boobka ah ee dalka ka socota. Khalid ayaa sheegay in xafiis kasta oo dowladeed ay u tageen dacwadda la xiriirta boobka kursigaasi, balse ay ogaadeen in xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo kan guddiga doorashada federaalka intaasi ahayn ay laaluush markaasi ka qaateen Fahad Yaasiin. ummadii oo dhan waa la iibsaday, waana la gumeeyey, cidna kaalama hadli karto xaqaagii. qof kasta wuxuu fiirsanayaa shilimaad uu jeebka ugu riday nin aan markaasi u soo dhididin lacagtaasi. haddaan markaa laga hortegin laaluush qaatayaasha iyo kuwa laaluushka bixinaya, qatar ayaan ugu soo wajahan, ayuu yiri Khalid. wuxuu intaasi ku daray in dad badan ay ku doodayaan in aysan jirin sabab loogu dhego kursiga Fahad Yaasiin oo keliya, iyadoo ay jiraan kuraas badan oo sidaas oo kale loo soo qaatay, balse wuxuu ku dooday in cadaalad daradaasi oo dhan uu horjoog u yahay Fahad Yaasiin sida uu hadalka u dhigay. kursiga Fahad Yaasiin ayaa dood ka dhexdheliyay guddiyada doorashooyinka dhexdooda iyo kan xalinta khilaafaadka, waxaana ay noqdeen guddigu mid u kala jabay laba garab Fahad Yaasiin taageersan iyo garab ra'iisul wasaare Roble taageersan oo markaasi dhinacyadaasi la kala safan. howlgalka midooda Afrika ee AMISOM ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ka dambaysa in qad cagaaran ay ka dhigaan eriyada ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho, gaar ahaan xirada Xalane ilaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. wakiilka midooda Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madera oo shir jaraa'id Xalane ku qabtay ayaa sheegay in qatarta amni ee jirta aysan ahayn mid la sahlan karo, taasna ay sababtay in ammaanka xarumaha ilaaliyaan la adkeeyo. waxa uu sheegay in go'aankan aysan keligooda qaadan, balse ay kala fariisteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo sida uu shaaciyay ka balan qaaday in soo jeedintooda uu ka soo fikiri doono, go'aanka uga habboon uu ka qaadan doono. wakiilka midooda Afrika ee Soomaaliya wuxuu sheegay in heshiis laga gaaray cidda loo ogolaanayo inay Xalane hub la gasho iyo ciddii loo diidayo. qof kasta oo hub la imaanaya halkan waa inuu sharaxo sharciyadda uu ku haysto hubka, ayuu yiri. Danjire Francisco Madera ayaa intaasi ku sii daray tan iyo markii la sameeyay xirada Xalane waxaa jiray xanaan uu maro qofka imaanaya ama ka baxaya
ma ahan kuwo hubka wata oo keliya, xitaa shacabka ayaa mara hanaankan ammaanka xalane waxay mas-uuliyad ka saaran tahay amisom 100%. Francisco Madera oo sii hadlayay ayaa yidhi qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda waxay haystaan hub culus oo noocyo kala duwan leh, tikniko iyo qoryo waaweyn. arrimaha hubkana waa in loo raacaa hanaanka uga degan xerada xalane. arrintan waxaa dhowaan kala xaajoonay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, wuxuu noo sheegay in arrintaasi uu fiirinayo isla markaan uu ka qaadan doono go'aanka ku habboon, ayuu yidhi Francisco Madera, wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya. wuxuu sheegay inay jiraan mas-uuliyiin loo ogol yahay inay hubka la galaan xerada xalane, laakiin looga baahan yahay inay nidaamka loo dejiyey raacaan, isla markaana ammaanka aagaasi oo aad loo adkeeyey aysan khatar gelin. kulanka uu hadalkan ka jeediyey Francisco Madera oo ka dhacay gudaha xarunta xalane waxaa ku sugnaa gudoomiye arrimaha siyaasadda nabadda iyo Midowga Afrika Danjire Bankole oo dhowaan soo gaaray Muqdisho, kaasi oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha. ugu dambeyn haddaan eegno taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi in qarshe oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in loo diiday u tartamida kursiga Hob Ewer 20 in qarshe oo kamida murashaxiinta u tartamaysa kamid noqoshada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka Galmudug ee uu hogaamiyo qoorqoor uu ka hor istaagay inuu markaa u tartamo kursi ay ku sharaftay beeshiisa sida uu hadalka u dhigay. waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed in maamulka Galmudug uu ii diiday kursiga ay reerkayga igu maamuuseen ee Hob Ewer 20, ayuu yidhi in qarshe. murashax in qarshe ayaa sidoo kale xusay in arintani ay ku noqotay mid lama filaana maadaama uu sanado fara badan u soo shaqeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu intaa ku daray waxa isweydiin leh yaa weeye qofka lagu abaalmarinayo, ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka la siiyo mid aan weligii waxba u qaban. Daahir Aadan Cilmi in qarshe oo mar soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka oo hadalkiisa sii wata wuxuu shaaca ka qaaday in cadaalad daro weyn ay ka jirto Galmudug, isla markaana ay ka socoto gardaro iyo bahdilaad. way muuqataa inay cadaalad daro ka jirto meeshaasi, way muuqataa inay gardaro meesha ka jirto, way muuqataa inuu bahdil meeshaasi ka jiro, ayuu mar kale yiri. Sareeye Gaas in qarshe ayaa u soo jeediyay beeshiisa inay ka tashato aayaheeda iyo sidoo kale kasimid aanshiyaha dowlad goboleedka Galmudug. ugu dambeyn wuxuu fariin culus u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo gudiyada doorashooyinka, isaga oo ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga oo uu u tartamayo oo tursigiisu yahay Hob Ewer 20 inta xal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeyay kursigaasi. waa tahay halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmeeno wararkeena soo socda, nabadgelyo.